wuxuu yidhi habeen ka mida habeenada ayaan seexan waayey, waxaana la seexan waayey werwer iyo walbahaar iyo waayo igu furnaa. ka bacdina waxaan go-aansaday inaan gogasha ka kaco oon dibadda u baxo, hawadana soo qaato, soona lugeeyo. anigoo lugeynaya xaafada dhexdood ayuun baan si kadisa waxaan ula kulmay masaajid firdad ka mid ah albaabadiisii furan tahay. naftaydii baa igula faqday oo maad masaajidkan geshid ood cibaadaysatid si aad ma garanaysayay humuumta iyo warwarada iyo cidhiidhiga aad dareemayso iyo culayskaasi ilaahay kaaga fududeeyo salaada raaxo uga hesho. wuxuu yidhi markii aan masaajidkii galay ayaa waxaan kula kulmay nin xagga qiblada u jeeda oo ducaysanaya oo ooyaya oo ducada aada ugu celcelinaya. codkiisii markaan maqlay iyo duruuftiisii uu ilaahay weydiisanayay ayaa intaan joogsaday waxaan go-aansaday inaanan salaadba tukane horta isagu intuu ducada dhammaysanayo aan sugo. wuxuu yidhi waan sugay. markuu ducadii ka soo jeestay ayaan ku yidhi buu yidhi maxay tahay warkaagu walaal? waxaanu iigu jawaabay ilaahay baan ku dhaartay deyn baa isku kay dul fuushay, duruuf adag oo ilaahay uuni ka warrami karaana way ila daristay. waxaan go-aansaday inaan duruuftaa dad bini aadmi iyo makhluuq aanan u bandhigan een khaaliqu asamaawaati waalard aan u bandhigto. dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku idhi deynta lagugu leeyay waa imisa? ma garanaya ninkani inuu nin taajiro oo ladan yahay. wuxuu igu yidhi 4,000 oo lacagta waddankaa ay joogaan ah 4,000. 4,000 ayaan gacanta baaban ku hayo waan u dhiibay buu yidhi. ninkii wuxuu yidhi aad buu u farxay. waxaanad moodeysay farxad daraaddeed inuu duulayo. aad buu u farxay. wuu ii duceeyey in badan, waanu ii mahad celiyey. wuxuu yidhi markaan arkay walaalkaa ilaahay hurdada iiga soo kiciyey ee duruuftiisa inaan ka jawaabo amar rabbi aan halkaa ugu soo galay ayaan go-aansaday buu yidhi inaan siiyo business kaarkaygii ama waxaan loo yaqaano bidaaqat alcamal. dabeedna waxaan u dhiibay kaarkaygii ayaan isidhi u dhiib oo telefoonkaygii iyo xafiiskaygii iyo adresskaygii waxay ku qoran yihiin. waxaan ku idhi kana qaado, haddiiba ay dhacdo inaad mar uun ii baahato ha ka warwareegin, hana ka warwarin, albaabkaygu wuu kuu furan yahay. waxa yaab leh, waxaan malaynayay buu yidhi ninkaas odaygaahi inuu ku farxo siduu tanba ugu farxay. laakiin miyaad garanaysaan wuxuu iigu jawaabay? wuxuu iigu jawaabay uu yidhi laa yaa akhi jazaaka allaahu khayra laa axtaaj ilaa hadihi albitaaqa. ilaahay ha kaa abaaliyo walaal, laakiin wax baahiyoon u qabo kaarhkani ma jirto. wuxuu yidhi waxaanu iisii raaciyey mar kasta oon baahi dareemo ama duruuf tan oo kale ah iyo kuwo ka waaweyn iyo kuwo ka yaryarba aan dareemo, waxaan haystaa albaab aan xidhmin. wa baabu rajaa'ihi maftuuxun likulli cabdin yas'alu jala jalaaluh. albaabka ilaahay waa albaab u furan addoon kasta oo wax weydiista. ilaahay baana leh waxay weydiista waan idin siinayaa, waxay weydiista waan idin siinayaa. waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan. qariib ilaahay wuu inoo dhow yahay. waxa weeyaan qariibun mujiibu dacwa, waa alla dhow oo alla barigeenna iyo ma garanaysayey ilaah tuugisteennana deg deg inooga aqbalaya markaynu shuruudihii ducada iyo dariiqeedii la nimaadnaynu marno. wuxuu yidhi markii
aan intaa arkay iyo ninkaasi dareenka uu leeyahay ayaa waxaan xasuustay buu yidhi xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu rasuulku yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarsuqu طayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaana. haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saaradkiisa dhabta ah allana wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu shimbiraha u arsaaqo. oo waa sidee? waxa weeyaan marka ay subixii waa bariistaan iyagoo bog laalan oo baahi ma garanaysayay qaba, ilaahay wuu soo siiyaa risiq waasaca oo ay ku noolaadaan. galabtiina waxay soo caraabaan iyaga oo dheragsan oo nimco ilaahay wada. nuxurku waxa weeyaan waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. cidda ilaahay tala saarata ilaahay isagaa ku filan. allahuma inaa tawakalnaa calayka waanabnaa ilayka subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka.